xilli guud ahaan Soomaaliya ay ka jirto abaaro dad iyo duunya noloshooda galaafatay ayaa maanta dowlad goboleedka Hirshabeelle waxa ay ku dhawaaqday inay abaaro ay ka jiraan deegaanada Hirshabeelle waxaana maanta webiga Shabeelle oo biyo gursaday kormeer ku tagay mas'uuliyiinta dowlad goboleedka Hirshabeelle iyadoona guud ahaan uu qalalay ama biyo gursaday webiga Shabeelle mar kale waxaana lagu xasuustaa webiga inuu sanad ka hor sidaan oo kale oo uu biyo gursaday gudoomiyaha maamulka gobolka Shabeellaha Dhexe Axmed Meyre Makaraan ayaa ugu horeyn sheegay in degmooyinka qaar biyo dhaamin laga bilaabay maanta waxaan maartay kormeer ku soo marnay webiga Shabeelle oo u jeedin inuu maartay guray oo maartay qalalay waxaan maartay marka maanta dhibaatooyinka ka jira gobolka ama guud ahaan ummadda Soomaaliyeed abaaraha ku habsaday ayay ka mid tahay waxaan maartay webigana ayagana saameeyay ay maanta soo bilaabeen soo wajaheen qaybo ka mid ah maartay gobolka laga bilaabay biyo dhaamis sidii maartay degmada Raayaceel hareeraheeda oo kaleento iyo dhinaca qorax dhac oo dhan dhinaca dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa magacaawday guddiga gurmadka abaaraha ujeedo magacaabis guddiga gurmadka abaaraha dowlad goboleedka Hirshabeelle kadib markaan arkay in laga maarmaan tahay in loo gurmado bulshada ku nool deegaanada dowlad goboleedka Hirshabeelle oo abaaruhu saameeyeen kow Axmed Barrow Axmed Acraabi gudoomiye Nuur Cumar Cali gudoomiye ku-xigeen Cabdi Nuur Macalin Maxamed gudoomiye ku-xigeen Cabdirasaaq Cumar Bood xogayaha guud Dr. Cali Wardhigley xubin Axmed Xasan Cali Soobiye xubin Axmed Culu Barrow xubin Cabdulla Sanay Cumar xubin Xunshay Axmed Caraale xubin gudoomiyaha baarlamaanka Hirshabeelle Cismaan Barre Maxamed ayaa ku baaqay in la gargaaro dadka ay abaaruhu saameeyeen marka dhammaan reer Hirshabeelle shakhsi kasta oo wax haysta jaaliyadaha dhammaan yani xubnaha labada gol ugu jira cid kasta oo wax gacanteeda ay ku jiraan waxaan baaq u dirayaa inay isgargaaraan shacabka reer Hirshabeelle ay gargaaraan biidhaaminta iyo abaaraha ka taagan ay iska gargaaraan madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Hirshabeelle Cali Guudlaawe Xuseen ayaa sheegay in webiga Shabeelle uu guray isla markaana dadka iyo dunyada biyo la'aan ay halis ugu jiraan waxaan dhex taaganahay waa webiga Shabeelle oo ogtiin in fatahaada asigoo sameynaya la celceli jiray haddana waxaan taaganahay bartamihii webigaan taaganahay sidaad u jeedin waa buundadii Jowhar hoosteeda la maruuhayo webigana saan uu taagan yahay ummadda ku nool Hirshabeellana noloshooda labay u qaybsamaysay dad ku nool xoolo dhaqatay ahaayeen qaybana waxay ahaayeen beeraley qaybtii xoolo dhaqatada ahayd saad ogtihiinba oo ama xoolo iyo maaragtay xareedna tacba jirtay haba yaraatay wax roob heedda ay fasalka la soo dhaafay ma jirin meeshii ay ku soo maaragtay u soo ciirsan jireen haddii abaaruhu dhacaan ay jiinka imaa jireenna waad u jeediinoo webiga sidaan uu taagan yahay ummadii ku tiirsaneeday noloshooda ay ku tiirsaneeday webiga Shabeelle haba oo tuulooyinka ku teedsan webiga dhinaciisa iyo ummadii ku tacba jirtana hadda webiga saar u yaala waxa haba yaraatay iyagu dadkaas xoolo ma dhaqanaynin noloshooda beeray aheeday beertina wixii lagu tacbaayay waxay aheeday webigana sidaan uu taagan yahay dowlad goboleedka Hirshabeelle ayaa maanta ku baaqday in la gargaaro dadkii uu ka biyo gursaday webiga Shabeelle Ismaaciil Cabdulla Sabriye Universal TV bartamaha webiga Shabeelle Jowhar